waxaad noo sheegtaa daadaada aad baa waxisanya adiga بسم الله daadaydu waxa weeyaan 5 ما شاء الله marka ugu horeysa waxaan hadle ilaahay subxaanahu watacaala suukan keenay madashan international book fair marka xigta halkan waxaan u mahadinayaa ama salaamayaa jaamac muuse jaamac oo soo abaabulay hawshan oo noo fududeeyay muddada 6 sano socotay waxaan oran lahaa jaamac sacba lagu soo dhaweeyo marka xigta halkan waxaan ka salaamayaa naadiga akhristayaasha Timcadde oo aad iyo aad si fiican igala qayb qaatay buugan naadigana si fiican loo soo dhaweeyo nodhada waqtiga yar awgii anoo inoo soo koobaya buugan ujeedadaan u qoray waxay ahayd sheekooyin kala daadsan ama sidii aan horey idinku sheegay sheekooyinkaasoo ahaa ama aan kasoo gurtay fasalkayga oo interes badan hayo aad u xiiseyn jiray oo waqti walba ka sheekaysan jiray ayaan dabcay inaan meel isugu keeno kadib annaba fasalkayga markaan qorinay waxaan damcay inaan bulshadayda Somaliland ahay si fiican ugu madadaalistaan yar iyo weynba waxaan ma ahan ujeedadaydu wax kale ama camaliyo laakiinse waxaan qorayo intaa aan idin sheegay haddaan waqtigoo yar awgii haddaan noo soo koobo waxaan idin soo qaban lahaa hal sheeko ama laba waqtigoo nagu yar sheekada adeero waqtigaan uu weyahay mahadnaqaasina uu qaadanaya hadda waxaysanay markaa sheeko ka mida sheekooyinkaas leedahay taastaa ugu qosol badan ama aad la wadaagay kaa noo doono maasanta sheekadaas waxaa weeyaan oday yaro reermiye ka sheekanaysa horta mar koowaad wada reermiye nahadooda ogaaday badiyo gudaba waxa Soomaali joogta London iyo meesha doonta noqotay reermiye baan nahay halkaa sheeko waxa weeyaan odaygaas reermiye salaada duhur markii laga baxay wuxuu tukaday salaadii duhur buu soo tukaday kadib salaada duhur markuu soo dhamaystay ayaa wuxuu damcay inuu halkan oo kale ayaa sheekha wacdiye dadka oo gooba lagu jiro xalqada kadib odayga yaraaba sii dhageyso uu soo dhex fadhiistay odayga yar wuxuu eegayo sheekha waxbana kamuu yara fahmin odaygana isla markaan waa guddiga ka soo kala wuxuu oday sheekhiisi u eegay ayuu xasuustay orkii beray lahaan jireen oo ka dhintay oo gar lahaa marka intuu ooyaygo sheekhii baa kitaabka isku laabay adeer maxaa ku dhacay la oysa intuu sii qaydiyey buu yidhi orkii naga dhintay waa sugadheed هذا ما سنتي في عمل الصلاة